mahadsan yahay Cabdixakiin Axmed Yuusuf oo u tartamayay gobolka Saraar imkana waxaan u yeerayaa tartamaha xiga waa Dawsi Axmed Maxamed oo u tartamaya gobolka Togdheer Dawsi yahay Dawsi Axmed oo ka socday gobolka Togdheer waxaan u yeerayaa tartamaha saddexaad ilaa hadda waxaan ku jirnaa waa qaybtii ragga ee group B waa Mawlid Xasan Gahayr oo u tartamaya
sigaagay dhallaanku ilaya waan dhaqaajo sigaagay dhallaanku ilaya dhankiya aadi marisaba ku dhiib talaadee dhankiyaadi marisaba ku dhiib talaadee adnahaygu dheerayn dhibatadaani hayso iisoo dhaweeyo aan dhammayno xaajada dalwadaag lamoodi indhaha kudhaygagay dhabanada hilaaciyo dholka qosalkaage dhabanada hilaaciyo dholka qosalkaage dhimasho iyo nolol weli kala dhex jooga dhimasho iyo nolol weli kala dhex jooga dhankiya aadi marisaba ku dhiib talaadee aadi marisaba ku dhiib talaadee adnahaygu dheerayn dhibatadaani hayso iisoo dhaweey aad iyo aad mahadsanid saaxiibayaalkaasna wuxuu ahaa mawliid oo ka socday gobolka gabiiley mawliid iyo gabiiley waa salaaman yihiin markan waxaanu yeerayaa tartamaha ka socda gobolka bowhoodle waa xamse ibraahim faarax xamse soo dhowo Testing 1 2 3 4 waxaan dhulka kaa jarin afka lagama
mahadsan yahay xamse ibraahim faarax oo u tartamayay gobolka buuhoodle waxaan u yeedhayaa tartamihii ugu dambeeyey waa mustafe cabdi axmed oo u tartamaya gobolka sool عفوا مصطفى علي أحمد أو ترتمى يقبل كالصول مصطفى waxaad turtami ugu dambeeyay jawigaaga wallahi jawigayga ma degan caawa ma degan adiga ka baxa codkaas Abrisa wahde
hayninyo haysinabese anadunka joogay haygaynin aakhir anadunka joogay haygaynin aakhir hayahaanin cabe hayahaanin cabe adooniga adkaysan ayaan lay aftuubin adooniga adkaysan ayaan lay aftuubin kaasina waxa uu ahaa tartamihii ugu dambeeyey ee dhinaca inamada caawa barnaamijkan oo ay ku loolamayeen 9 tartame mustafa cali axmed oo u tartamayay gobolka sool ayuu ahaa markan daawadayaal waxaynu wareegaynaa si aynu ogaano natiijada guddidu ay siiyeen tartamayaasha caawa kala matalayay ee ka koobnaa 4 inan ee kala matalayay 4 gobol waxaan ku wareejinayaa guddida bullaxuubay caabi miro dacar iyo sahra axmed cabdilaahi sahra ilays waayahay mar kale iyo isu soo noqod wanaagsan waxaan filayaa dee waxaan ku jiray saacadihii u dambeeyey bay maraysay baashu dabadeetana nin walba uu isu soo baro wuxuu yiri bal waxaad miidaanka la timaad hal arko waa laysu dhibactirsanayaa lama kala dhaco raggu khaasatan ma kala dhacaan dadaal badan bay sameeyeen runtii amiin shaakir waa fanaan cod wanaagsan runtii inkastoo hees horaan ka qaadnay uu yar circiray laakiin heestii dambe sideedii buu u keenay waanu ku fiican yahay waxbaase ka dhiman uu soo dhammaystiran doonaa kulliba waxaan siiyey 15 dhibcood cabdixakiin yuusuf waxaad moodaa heesihii hore uu noo qaadayey markii uu qaadayey heesihii mursal oo kale runtii waxaad moodaysay nin aad u firfircoon laakiin heestii caawa noo qaaday kuma macaanin runtaa wanaagsan wuxuuna in been laga sheego maaha waxaan siiyey 10 dhibcood dowsi axmed aad buu fiican yahay 100% waxaan siiyey 15 dhibcood mawlid xasan gahayr isaga qudhiisu waxaad moodaysay meelaha qaarkood inuu yar ciirayo hase ahaatee wuu fiicnaa isagana waxaan siiyey 15 dhibcood xamse ibraahim oo ka socday buuhoodle top 1 dhinaca codka markay noqoto wixii meeshiisa soo taagay ninka codka ugu codka wanaagsan buu ahaa anigu waxaan siiyey 20 dhibcood haddaana been sheegayn mustafa cali axmed wuu fiican yahay inkastoo meelaha qaarkood ciirciirayay hase ahaatee isagana waxaan siiyey 15 dhibcood wabilaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idiin salaamayaa horta dee hablaha markii hore waa nagii ka hadalay maasha allah inamadu may kala dhacay xaqiiqdii iminka dad dee meel dahab lagu dhex geeyo talow keebaad qaadan dee nimankani may kala dhacayn 5 ninba may kala dhacayn maasha allah amiin waxaan siiyey anigu 20 waayo habeenkii horena waan ogaa cabdi xakiin waxaan siiyey isagana 10 dowsi waxaan siiyey 20 mawliid waxaan siiyey 20 xamse waxaan siiyey 20 mustafa 15 ayaan siiyey anigu kulli wada waa raygaygii xaqiiqdii nimadu bay kala dhacayn aad bay wada cod macaanayeen maxaan ku dhahdaaye anagu imika anagoon idin kala saaraynaa une qof waliba fankiisa dee suuquu la tegayaa beri ka maalin insha allah marka aad baan idiin salaamaya lix waana lixdii wax ku qoran meesha waxa la isula haray mar ma jiraan nin kastaba awooddiisu halkaas soo bandhigay
falanqayn badan kolley uma baahna qof kastaba dhaliishuu leeyahay is garanaya annagana garanayna waan la wada arkay amiin shaakir ayaa ugu horeeya amiin horta markii stuudiyo la soo galay wixii la sameeyey baa laga bilaabayaa wixii markii roobka na soo eriyey shaqo kuma lihin stuudiyo baanu ka bilaabaynaa amiin shaakir hees buu inoo qaaday codkiisa iyo akshinkiisa iyo teembada iyo suu ula socdo min 5 dhibcood baan ku siiyey 15 dhibcood buu ayaan halkaa ku siiyey okay cabdixakiin yuusuf aad buu u fiicnaa akshin fiican nuu lahaa heesta u qaadayay 2 jeer ayuu 2 meel ka galay mar dhaxtaal loo galo meel inuu ku celiyo la doonayey ayuu ka aamusay haddana uu teembada wuu la socday kabankiina wuu la socday 10 dhibcood baan siiyey isagana dawsi axmed si fiican buu u heesiyey de waa raggan hore noo soo wada mareen waan wada aragnay len magaranaysa marka akshinkiisa codkiisa la socodka muusiga min 5 dhibcood baan ku siiyey 15 dhibcood allah mustacaan mawliid xasan soo maa magaca aduu mawliid kalema ma jire mid kalema ma jire mawliid heesta say u socotay qaabkuu u qaadayey akshinkiisa labiskiisa teemba 4 qayboodba min 5 dhibcood baan ku siiyey 20 dhibcood baan isku wada siiyey xamse ibraahim waa nin fanaan oo khatara si fiican u heesaya akshin fiicanna leh isagana 4 qaybood oon ka eegayay ahayd teembada iyo kabanka soo raacayo akshinka heesta codka intaba waxaan ku siiyey min 5 dhibcood waa 20 dhibcood markii la sugeeyo mustafa cali aad buu u fiican yahay akshinkiisu wuu fiicnaa teembada wuu la socday marmar unbaad moodaa inuu meelo yar ka siibanayo laakiin siduu hadda noogu qaaday waa si uu wax ku qaadi kara ku fiican yahay waxaan siiyey 15 dhibcood allahu yaclam waa tahay daawadayaal intaas aynu kaga soo gudubnay natiijada ay bixiyeen garsoorka barnaamijkan aan dib idin xasuusiyo tartamayaasha barnaamijkan ee ka koobnaa 6 tartame inta ay kala heleen amiin shaakir oo ka socday gobolka salal waxaa siiyey buuluxuubey wuxuu siiyey 15 caabi mirada car waxa uu siiyey 15 maama sahreeleysna waxay siisay 20 cabdixakiin oo ka socday gobolka saraar buuluxuubey waxa uu siiyey 10 caabi mirada car 10 buu siiyey sahreeleysna waxay siisay 10 dawsi oo ka socday gobolka togdheer 15 waxaa siiyey caabi mirada car 15 waxaa siiyey buuluxuubey 20 waxaa siisay sahreeleys mawliid oo ka socday gobolka gabiley 15 waxaa siiyey caabi mirada car 20 waxaa siiyey buuluxuubey 20 waxaa siisay sahreeleys xamse oo ka socda gobolka buuhoodle 20 waxaa siiyey caabi mirada car 20 waxaa siiyey buuluxuubey 20 waxaa siisay sahra ilays mustafa oo ka socda gobolka sool 15 waxaa siiyey caabi mirada car 15 waxaa siiyey buuluxuubey 15 waxaa siisay sahra ilays natiijada guud wadarta guud gobolada halkan ka soo baxay waa dawsi oo ka socda gobolka togdheer waxa uu ku baxay 50 dhibcood mawliid oo ka socda gobolka gabiley waxa uu ku baxay 50 dhibcood amiin oo ka socda gobolka salal waxa uu ka baxay 50 dhibcood ayuu ku soo baxay natiijada tartankan caawa waxa ugu sarreeyay xamse oo ka socda gobolka buuhoodle wuxuuna ku baxay darajada 60 ama 60 dhibcood oo ahayd natiijadii laga sugayay gudida sharafta leh farsamayaqaanada barnaamijkan si gaar ah ayuu ugu mahadcelinayaa sawirqaadayaasha maxamed awga ariido axmed jiiti farsamayaqaanka barnaamijka xamse xareed dhinaca codka waxaa inoo fadhiyey ridwaan cabdinaasir guud ahaan shaqaalaha telefishinka sahan si gaar ayuu mahadsan yihiin barwaaqo xasan xaaji faarax oo barnaamijka la daadihinaysayna iyaduna si gaara ayuu mahadsan tahay anigoo sakariya sudeysiya iyo guud ahaan shaqaalaweynaha telefishinka sahan waxay si gaar ugu mahadcelinayaan gudoomiyaha tv-ga sahan mudane axmed cabdiraxmaan xirsi heelo iyo agaasimaha tv-ga maamulka sare ee telefishinka sahan iyo guud ahaan daawadayaasha sharafta leh waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hami gor ku taamo
waxaan dumar kala tilmaamo habeenba mitaashka saaro ticiyo hees bilan u tiriyo waxaan hamigool ku taamo waxaan dumar kala tilmaamo habeenba mitaashka saaro ticiyo hees bilan u tiriyo hamuntira maanta weeya asluub waxaani tuulaysaa naftaydana toosinaysaa waxaan rabbigay ka tuug